بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما شعب وينها الصوماليات مال البودين ده على ذا كجوتان وحلبان شعب الصوماليات حلبان ضعف نوادي نرل رنت الشيك هنا بقين سولو هذا أصحابته قالي مدة الصوماليات دلكودي دلكودا شعل شيء هدعو شيء كالكال كله هدعو برنامج كوركس وآخرته إن شاء الله تعالى هدي أي نقص انتو in aysan korontadu naga tagin wadankan koronto la'aan loogu baayaa way dumi rabtaa markaad aragto meel korontadu tagtagayso iyo biyaha way socotaa marka waxaan u maleynayaa tan inay socotaba insha Allah soo share gareeya ma sha Allah barnaamijka hala share gareeyo meel dheer hala gaarsiiyo waxaan u soo galay inaan ka hadlo arrin xaqiiqo ah oo run ah oo ka jirta dalka Soomaaliya hadda right now qoladii qaran dumiska ahayd ee aad wada taqaaneen shisheeye u kalkaalka ahaa dalkan iyo dadkan aan la xajaclada kala hayn ama uusan ku haynin waxay bilaabeen inay lacag feeg ah soo geliyaan magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya si ay ugu baadhaan ummadda Soomaaliyeed dhaqaalahoodana ay u baabashaan ma karaan ama ma awoodaan inay doorasho galaan doorasho xalaala inay galaan ma awoodaan xaqiiqatan ma awoodaan waa inay raadiyaan waxaaraana Siciid waa ku salaamaya Cabdinaasir Abshir waa ku salaamaya Qadra Muuse aad baan ku salaamaya soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed meel walba dunida caladeeda ka joogtaan barnaamijkana aad u share gareeya waan ka cudur daaranaynaa bariyahan anaga waxaan hayso koronto xumo dalkan waa koronto xumo ka dhacday haddii uu waqtigu nagu simo oo inta aan ku jirna aysan naga go'in ama aanu ka faa'iideysano inta yare ay korontada sii joogayso 15 daqiiqadood baa ka hadhay 15 daqiiqadood insha Allah taala waxaan rabaa in aan bal ka hadlo ama aan shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo Sucaad Shirdoon waa ku salaamaya walaashay ama aan shacabka Soomaaliyeed gaarsiiyo fariinta ah waxa soo gashay dalka Soomaaliya oo xaqiiqo ah lacag feeg ah oo ay soo samaysteen qolada qalan dumiska ah ee rabta inay dalka iyo dadka doorasho ka galaan markii ay awoodi waayeen wax kale ay awoodi waayeen oo beesha caalamku ay dhagaha ka soo fureysatay indhahana ka xiratay ayay waxay bilaabeen lacago feega inay sameeyaan marka barnaamijka share gareeya gaarsiiya shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inay jiraan lacagahaas feega ah ee ay dalka soo galiyeen Yaasmiin Jaamac waa ku salaamaya soo dhawaada insha Allah barnaamijka la share gareeya meel dheer na gaarsiiya idinka share gareyn kara anigu meeshan wax ku share gareeyaba waa laga soo tuurayaa oo qolalkii nabad iyo nolol waxay isu bedeleen keesi indha qarshe waa ku salaamaya Daawud Xuseen waa ku salaamaya Royce waa ku salaamaya share gareeya aad u share gareeya إسماعيل حاج واكو سلاميا دقلادن واكو سلاميا عبد السمد نور واكو سلاميا هذا الله شهر قرايو waxaan moodaa gurubadii la lahaa waa nabad iyo nolol farmaajo wala iskale waa farmaajo team gurubadii la lahaa waxaad moodaa in ay qaran dumisku lahaayeenba oo lagu awrkacsanayay awrkacsi un bay ahaydba meel alaaliya meesha wax ku share garayso aad istiraado kuwan isku kooxtiin ama isku reertiin oo leer nabad iyo nolol marka taa wuxuu share garayso waa tuurayaan marka insha Allah share gareeya bal idinka meelaha aad ku share gareynaysiin ku share gareeya insha Allah taala qolalkoo dhan iyo guryahoo dhan bal hala geeyo wixii la soo tuurana aan aragno insha Allah taala aad loo share gareeyo barnaamijka caawa bal share gareeya meel dheer gaarsiiya wadankii waxa soo gashay lacag feeg ah Daawud Xasan waa ku salaamaya Xaqdir waa ku salaamaya Sagal Maxamed waa ku salaamaya share gareeya aad loo share gareeyo bal meel dheer caawa hala gaarsiiyo barnaamijka insha Allah taala wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed dalkiina iyo dadkiina waa lagu soo duulay waxaana ku soo duulay sokeeye iyo shisheeye sokeeye iyo sawaaxili gumaystaha madow maanta waxaynu maraynaa haddaynu Soomaali nahay dalkeenni in la inoo tilmaamo qofta la dooranayo
haddaan diidnay oo nidhi ma rabno kuwaas waxaa bilaabatay in cadaawad laynoo qaado la isku dayo in xoog laynagu marsiiyo waxaynaan rabin gaashaan yara yara waa ku salaamaya waxaynaan rabin waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego warqoolleyda aad aragteen ee tabarteena haddii baalka laga qabto la kala jibin karo qoorta laga siibi karo waxay diiday in xoog qoorqabad qooleydu waxaa la yidhi qoorqabad in biyo lagu siiyo way diiday waxay tiraahdaa Soomaalidu qooleyduba qoorqabad barnaamijka shaargareeya meel dheerna gaarsiiyay ku salaamaya Jabir Cabdullaahi aad baa ku salaamaya waxaad moodaa marka waddankeennii in lagu soo duulay waana lagu soo duulay waa waxad qooleyda aad aragteen baa waxay diiday in qasab biyo lagu siiyo Soomaaliya oo jira oo qarannana in la isku dayo aan hubnaa oo aan qiraynaa dalkan iyo dadkan inay u baahan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qof walba hadda ay fiirsanay waxaan ka codsanayaa share gare like tasaar soo follow gare waxaad ogaataa dalka iyo hogaamiye Siciid Cabdullaahi Balbalaad iyo nimanka uu hogaamiyo waxay istaad gareeyeen in ay dalka Soomaaliya lacaga feega ay soo geliyaan oo ay doorashada rabaan inay ku galaan oo ay rabaan in lagu doorto marka balaadu sheergareeya caawanad waa garan naga xun yahay ma garanayno wadankan waxba ka qarrimay wadanka saan ma ahan ba ka qarrimay laakiin waxaan idin sheegayaa dalkiina iyo dadkiina in lagu soo duulay oo lacaga feeg ah loo keensaday in lagu dhunsado dhaqaalaha dalka si doorasho loogu galo waxaan rabaa on halkaan kale u soo galay iyadana inaan idin sheego nimankii dhihi jiray ee idin sheegi jiray waxaan u istaagayaa I don't know waxba qaldan marka ka raali ahaada for the confidence waa nadwa waaye waxaad ogaataan marka nimanka raba inay dalka iyo dadka maanta hogaamiyaan in ay marayaan inay lacag feega inta soo samaystaan ay rabaan inay dhaqaalaha dalka ku urursadaan doorashana ku galaan laguna doorto kabacdina ay xukumaan ummadda Soomaaliyeed iyagoo shisheeye ugu reer nabad iyo nolol marka waxaan u sheegaynaa barnaamijka inaad share gareysaan meel dheer gaarsiisaan qodobka kale oo aan meeshaan u soo galay caawa waxay tahay dad badan oo aad ku ogeydeen inay nabad iyo nolol yihiin ayaa balaaya qaaday balaayadii idin qaaday idima soo dhigto dhammaantiin waan idin salaamayaa barnaamijka la share gareeya meel dheer gaarsiiya niman badan oo inagu kala kacsaday facebookyo iyo youtubeyo ayaad maanta aragtaan in ay dib uga noqdeen nabad iyo nolol laakiin waxaan kuu sheegaa qofkii nabad iyo nolol u ahaa dhaqaalow haddaad samaysay waad samaysay haddaadan samayninna samaynmaysid dib dambe u samaynmaysid waxaan kuu sheegayaa sideedaba biyuhu hadday dhammaadaan waxaa soo hadha dhoobo dhoobadaas xooluhu kama maarmaan way fuuqaan aniga waxaad igu ogaanaysaa I am going to be the last forever nabad iyo nolol waxaan u sheegayaa marka nima yiraahdaan Kabtan Ayuub nima yiraahdaan Caynaashe nima yiraahdaan Shiina Culay saddexdaasba wixii qaaday idima soo dhigaan wixii id qaaday idima soo dhigaan meeshaad ku soo noqon lahaydeenna waa la iska rabaa nabad iyo nololna waa forever wayna soo noqonaysaa maanta waxay maraysaa waad ceeboodeen nimanka aad maanta 2022 lix sano dabadeed aad dabada soo qabsateen inay taroonkoodii go'ay oo ay maanta ka marayso lacag feeg ah wal fiirsada lacag feeg ah inay wax ku raashaan markay si kala waayeen oo cayn kala waayeen oo meel u baxaan waayeen ayay maanta waxay ka maraysaa qoladii hotel Jaxiima lacag feeg ah in lacag feeg la sameeyo la rabo dhaqaalaha dalka in lagu urursado dollar lagu bedesho dollarka marka lagu bedesho doorashada lagu galo xildhibaanada lacagtaas in loo qaybiyo ayay maraysaa mar walba waxaan leenahay nabad iyo nolol FIFA waa guuleysanaynaa guushuna waa nabad iyo nolol war waxaan nabad iyo nolol ahayn dalkan kuma noolaan karaan mana joogi karaan haddaan kuu sheegaya waxaan kuu sheegaa marka nabad iyo nolol ha ka dhicine war xajiso bir iska dhig xajiso oo bir iska dhig nabad iyo nolol waxay u baahan tahay inaad ahaato nabad iyo nolol inaad adag tahay oo aad qof adag tahay oo aad damac iyo hami aad leedahay
oo aad kugu jirto mowqif aad adigu u socoto ama target aad leedahay oo future-ka ah inaad u socoto laakiin haddaad dhaqaala ku tahay sida shiina culay iyo caynaanshe iyo ninkii la yidhaha kabtan ayuub ayaa daaqadda ka baxaysaa waa ninkii ducadiinni kabtan ayuub markuu shilka galay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisu ka badbaaday iyo ducada shacabka soomaaliyeed ducada shacabka soomaaliyeed ayuu ku badbaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala baana ka badbaashay ilaahayna ducadoodii waa u aqbalay waa soo celiyey maanta muxuu noqday shisheeye kalkaal muxuu noqday qaran dumis muxuu taageerayaa oo uu dhaqaale ku taageerayaa qaran dumis awalba maxaad ahayd mooriyaan ismooriyaan adiga markaad mooriyaannimo ku soo korto oo aad ku soo korto sharaf xumo oo aad ku soo korto liidasho oo aad tahay nin baahi ku soo koray oo qabiil qori u sidan jiray marka aad tahay damacaaga saanoo kale u noqonaa sharaftaadu saanay noqona karaamadaadu saanoo kale noqona 20 milyan ee qof ee shalay toole kuu duceeyey maanta habaarkooda xaguu ku dhigi karaa xaguu ku geyn karaa waad roon tahay looma rabaq leeyo waad roon tahay oo maanta waad roon tahay war looma rabaq leeyo walaalow waxaan kuu sheegayaa marka waxaan rabaa si toosa inaan wiilka dhalinyarada ee kabtan ayuub la yiraahdo aan ula hadlo shalay mooriyaan baad ahayd puntland ummadda soomaaliyeed iyo reer tolkaabaad xasuuqaysay weliba soomaali kale maad dilay reer tolkaabaad leynaysay tiyay tahay baad tahriibtay ood magafo martay oo aad bad martay oo aad silac iyo rafaad qabyaalad darteed yurub ku tagtay adoo liita oo ducufa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu sameeyey ummadda soomaaliyeed ayuu kuu jilciyey oo ku jeclaysiiyey oo aad been u sheegtay sidii xasan cali khayre ayaad been ku sheegtay beentii aad u sheegtay ayaad maanta wax ku noqotay magac iyo maamuus iyo sumcad iyo sharaf iyo karaamo ayay kuu yeeleen way ku qurxiyeen adigoo dagaaga oo dhinacyadan ka guban baasuuke iyo rasaas ku madoobaysay ayay ku caddeeyeen waxay kaa dhigeen qof bini'aadana oo inta sawir taga isu soo sawiri kara kabtan ayuub baan la hadlayaa caawa ma leexleexanayo habeen mid baan qaninaya adoo liita war dadka soomaaliyeed adoo ugu liita soomaaliya ugu liita waxaa ugu liita ninka inta tahriibay liibiya maray magafo maray wixii la raba laga samaystay badda militariumka isku tuuray gaajo darteed oo dalkiisii ka huleelay gaajo darteed iyo qabyaalad darteed dalkiisii uga huleelay adaa dadka ugu liita adaa dadka ugu hooseeya aday baahidaadu meel walba taalaa adaa waxaad marqaati ka tahay ilaahay hortiis inaad qabiil dartiis u tahriibtay haddaad wax tahay boosaasaad wax ku noqon lahayd iyo bari iyo garoowe aad wax ku noqon lahayd warayaa maad daaduunteen daaduun mataqaanaa who is the refugee waa maxay qaxoontigu maxay tahay qaxoontinimo I never accepted in my life qaxoontinimo runtaan kuu sheegaya South Africada aan joogo qaxoontimo kuma accept karayn anaa runta kuu sheegaya adoo xunoo qaxoontiya oo liita oo magafo maray oo militariumka maray oo naftu ku hayso ayay ummadda Soomaaliyeed wax ka dhigtay maanta inaad wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee duco iyo wax walba kula garab taagnaa aad ku disappoint garayso that means waxa tahay mukulaal because mukulaashu ma appreciate garayso ma jirto appreciate ma keelaysid mukulaal waxaan cadaysay un marka oo aad ummadda Soomaaliyeed u cadaysay inaad tahay maxay mukulaal taasan ku sheegay waxba leegama bedeli karo waxba leegama qaban karo kuwii aan ka dhashay xabad ka qaban waayay kuwii aniga aan ka dhashay oon kabaha la kormaray ayaa waxba iga qaban waayay cid kale wax ka qabanaysa ma runtaan ku sheegay waxay tahay marka kabtan ayuub wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed meesha aad gaarsiiseen ka soo dejiya
kasoo roga reer nabad iyo nolol baan la hadlayaa weliba gaar ahaan xoogaga wadaniyiinta kabtan ayuub meesha aad saarteen kasoo dejiya dhulka keena waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi dib dambe inuusan u tahay inuusan u istaagin sababtaan kuu sheegaa sababta ayaan kuu sheegaa qaran dumis hadduu meediyaha sharaf ku leeyahay iyo karaama hadduu ku leeyahay nin walba oo qaran dumisa inta page samaysto nabad iyo nolol kuma qorteen inta group samaysto nabad iyo nolol kama hadleen inta group ama YouTube samaysto nabad iyo nolol baan ahay marka hore ma yiraahdeen milyamis baynu aragnay yiraahdo marka hore nabad iyo nolol baan ahay hadhowna kululaada marka shilmaantu ka bataan xaqiiqada taga oo qabyaaladii iyo wixii ay ku soo gareen iyo qashankii dhaxda ka fariista waxaan idin sheegaa marka saddex ninba take them as enemy saddex nin take them as enemy and take them out of nabad iyo nolol waa kabtan ayuub waa caynaanshe waa shiina culay waxaad dad wax maqlaysaan waad aragteen waad barateen waad ku quusateen waxaanse kuu sheegaa reer nabad iyo nolol wallaahi oo billaahi oo tallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala cid aan ahayn oo ay u baahan yihiin ma laha sababtoo ah waa milaayiin anaa hadda runta kuu sheegaya anaa xaqiiqada kaa dabageynaya anaa indhahaaga ku lisaya waa milaayiin waxaan kuu sheegaa waxaan nabad iyo nolol ahaynna ma guulaysanayaan adigu ama qabiilkaaga ka raac ama qoyska raac ama Kenya raac ama Imaaraadka raac waxaa tahay minority mar walba minority baa tahay magac haddaad aragto nin baraha bulshada magac kale oo sharaf kale oo karaamo kale oo bilaayiin ay daawato waa qof labad iyo nolol qofkaasi ama ha ku dhuunto ama ha ahaado qoftu marka ay nabad iyo nolol tahay runtaa kuu sheegaya magac iyo sumcad bay leedahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ha ahaado qof kaloo shacab oo caadi ha ahaado qof kaloo Soomaaliyeed oo shiciba ha ahaado oo meediyaha soo gelin oo qalbiga ka taageersan oo like iyo comment soo qora marka uu banaanka socdo xitaa dadka kale waa ka gudisay waana ka qurux badan yahay هالو السلام عليكم تعرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا صلوا codkaagu aad buu dheega aad buu hooseeyaa ku soco si fiican Mariin Jaamac Goray waa ku salaamaya Ismaaciil Shidane waa ku salaamaya ku soco adigu waad go'aysaa mis ogtahay dadka ma kuu sheegeen mise waan ogaa inuu go'ayo waan ogaa nadwaaga halaysan marka ku soco يعني ساك أركي لو وحنا قرقرة أضيق waxaan dhahay war kursigii odayg markuu kursigii waaybu iyo qaniga dadka ku bilaabay miyaan dhahay awal badantii lahaaba waxay ahayd wuxuu islaa waa qaldanaaye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee sanatoor ka dhigi doona ama xildhibaan ka dhigi doona ama meel kugu xidhiidhi doona farmaajona waxa ma qoro ma fahanti ma qoro sababtoo ah wax musuq maasuq qaba shaqo kuma leh ilaahayna iyaguna musuq maasuq bay rabaan inay ka raadiyaan inta taageeraan ma fahanti والله أنا والله يا وي أنت هالرئيسي ولكن أضيع صار في أجريره هي ما بكر أركي وهذا يورودن كان ضد كاربا وكل عضيه يا ضد كاربا كل عضيه والله ضد أنت بيا ليستهدوا هي حتى مركي دجالة السعودين إن مو هاي بيئة ويلش وعيد ما كسر كعيه واللين هي وسؤال هي مين أركي ميا قبيا ليستوي walaalo waxaan ku sheegay horta koosay dadka waxa ugu liita kabtan ayuub oo kale
magaaladii uu ku dhashay waa ka soo qaxay wuxuu uga soo qaxay qaajo ee sawir isla daba taagan isagaa isla yaaban wuxuu la yaaban yahay heerka maanta uu joogo ayuu la yaaban yahay sababtoo ah maba marinba ismaba hawaysanba ninbaa hadda ka hor South Africadan yimid lifeka uu maanta ku jiro ayuu la yaaban wallahi lifeka uu ku jiro wallahi waxa nabad iyo nolol baagaasiye dadkan baagaasiyeen nabad iyo nolol ninkii ku shaqaysanayay marka meesha ay gaarsiiyeen haddana way arkaan meeshuu ka imaaday iyo meeshuu ka soo qaxay unbu gadaal ugu noqonayo meelihiis unbu fadhiisanayaa marka qofku waxaa fiican inuu qadiyad leeyahay oo maaragtay meel lagu tiriyo oo uu go-aan leeyahay oo fiican marba ka agday marka ha kuwaana qaataan Ismaan Dube kuwaana waxaan leenahay malaayiinta nabad iyo nolol waxaan leenahay garabkooda ka soo baxa dislike-ta iyo unfollow-da ha loo soo badiyo caawa ha lagu bilaabo dhulka ha lala soo simo ilaa ay Soomaali ka soo noqdaan hadday xitaa yiraahdaan waxaanu nahay nabi soo daahiray iyo nabad iyo nolol soo daahirtay dib yaa looga aqbalin wareer nabad iyo nolol iska fiiriya dadkan nabad iyo nololnimo iyo Soomaalinimo iyo sharaf kuma jirto war qofka marka hore background-kiisa soo raadiya idan dhahayo nabad iyo nolol baan meesha uu ka yimid horta marka hore soo fiiriya ballan waxaanu qaadaynaa inaanu hadda wixii isaga ceeb ahaa u lahaa in badan baanu ammaan wuxuu ceeb lahaa inaanu soo raadino background-kaaga lama soo waalayo nabad iyo nolol waxaa ka daranba dadkii hataa ilmaha yararka ee maanta teenka yariska jira waxay arkahayaan inaad ciidan u dhisay intuu dhisay war wax loo wada jeedo wax loo wada jeedo banaankaas yaala inaad ku ceebin baa waran moogtay oo sharaftaada ku gadanin baa ka qiimo badanba sharafta uu leeyahay awal maxay sharafta uu awal balaha adigu markaad sharaf lahayd asal sharaf u leedahay ayaad sharaftaada dhowran kartaa laakiin nin qaxoontiya oo qabiil u qaxay dartiis oo Afrikada lu ku dhaxmaray oo Liibiya saxaaraha maray oo magafa wuxuu raba uu ka samaystay oo Mediterranean-ka biyaha gaajo dartood isugu riday maanta Yurub jooga wax ismooday gibigiisba wuxuu damiirkiisa iska yarba damiirkiisa liitala ku soo wallahi ana hadda arkay laakiin ayaantii horeeto waxa dadaya waa qadiyad la isdaayo laakiin hadda cid walba ogaatay maadaama aan maalinkii waxa arkayba maalinkii dagaalku socday baan arkayba soo hadlayo marka arkay wax qabiyaalo dushinaysa inuu yahay oo sababtu ku hadlaya wax ka runa aysan jirin maalinkaas aan u shaqeeyay haddana waaba si xaqiiqo marka odaygii iyo kii ordaba shiina cali horta awalba faa'iido muna hayn waqtay kolba dhinac uu buubahay ka sartaan ma batirsanaynin laakiin odaygaan iyo kan marka hore iska dhigayaan dad toosan haddana iyagana looga wixii haraya waa la kala haraya ayaan ku dhahay waa la kala haraya filayo guul ku dhaweeyda inay ka dhacdaan insha Allah rajaynayna maya waa guuleysanayna insha Allah taala hadda waxay maraysaa lacag feega in la soo sameeystay naf laga raadiyo markii wax kale la waayo adduunka indhaha ka soo xirtay oo nin walba ay Mareykanka iyo Carabtu ay yiraahdaan xabad kuuma hayno waxay maraysaa nimankii lacag feega ka maraysaa inay magaalada Muqdisho lacag feega oo jeegaga iyo muxuu ahay lacag kaasho feeg ah bay diyaarsadeen xildhibaanadan dhuunta ka kacay ayagana sharaftoodii gatay sharaf aan lahayn yaa loo diyaariyay inay intii lagu sharaf dilo oo muxuu ahay codka laga qaato in berina feega xagga iyaga waliba lagu xidhaya xagga kanta waa lagu dhahayaa feega waa lagu xidhaya lacagta waxay rabaan inay ku urursadaan doolarka suuqa yaala oo ummadda Soomaaliyeed ay ku baabashaan dhaqaalahooda ay ku qaataan waxaan u sheegaynaa marka qof walba oo ganacsada ah oo Soomaaliyeed iska fiiri jeegag waxaa yimid feeg ah iyo lacag feeg ah ayaa soo gashay dalka cash labadaba lacag feeg ah socda qof walba oo ganacsada ah war dhaqaalihiina ka ilaashada shilin Soomaaliba cusub hadaad aragtaan dhaqaalihiina ka ilaashada anigu habeen hore arkay niman le lacag saan cusub waligay ma arag yaa soo sameeyay lacagta ma dawladda waxay leedahay bangiga dhaxay leedahay soo sameeyay lacag oo Soomaaliyeed oo telefishinada laga sheegay miyaa jira reer baadiyanimada iska dhaafa lacagtaas waxaa soo sameystay qaran dumiska
dhaqaalihiina la rabaa in lagu qaato in doolarka laydinkaga qaataa la rabaa qof walba oo soomaaliya ganacsatada weliba iimaan kale ee ummadda soomaaliyeed ay ka degi leedahay ayaanu maanta waxaanu u sheegaynaa war hantidiinna ka ilaashada hantidiinna ilaashada waa laydin dhici rabaa waana laydin boobi rabaa walaalo maxaa kuu dhiman ku darso kaas kale xildhibaanadan iyagana ku xildhibaanada dhuunta ka kacay daraata waxaa la sheegaya markii gudoomiyaha la dooranaya inay screen shot intii loo diro banaanka loo yaaciyay oo waaba la fiirsanaya banaanka waa la fiirsanaya balaaya soo yaacaysa iyo wixii soo marayay intii banaanka loo yaacay la yidhi screen shot noo soo qaada soona ii sheegeen inay dhaheen doorashada waana lagu soo dejiyey waana inta arkay dhawaaqahayay baad waxay leeyihiin doorashada waana lagu soo dedejiyey doorashayda kusoo marka ujeedo kaleento ama lacagtan ama inay lacagtan soo diyaarsan hayaan ama inay hadhow rabaan annaka doorashadii maana gelin maxaa hadduu soo baxo madaxweyne farmaajo ma ogelin dhahaan khayaano ay wataanba kolley warkaasay hadda wadwadaan laakiin cidi u joojin mayso xildhibaanada un baan rabay in haddii la gaadhsiin karo la gaadhsiiyo xildhibaanow waddankan inaad badbaadisaan dhibaatadan waad aragtaan waddankan uu soo maray 30 sano lasoo taagnaa hadda waddankan waxoogaa hadda cagiibu ku istaagay dowladnimo iyo aqoonsi iyo ciidan iyo waxoogaa buu yeeshay inaad intaad guri raacyo noqotaan oo weliba guriga aad raacaysaan lacagtaa faagaa weeye cid lacag kaleed hadda oo toosan idin siinaysa ma jirto lacagtaa faagaa intii laydin siiyo oo muxuu ahaay nin dhuunta ka kacay oo awalba kii waddankan gatay ah uu idiin fadhiiso meesha unbaa idinkana laydin laynhayaa marka taas ka digtoonaada dadka soomaaliyeed ee meeshay doonahayaan shacab baan hayaa dhahay shacab baan codkiisa wadnaa aad dhihi jirteen shacabka codkiisii aad wadaan maanta codkiisa ugu yeeliya aad meesha fadhiisiseen dhaga annagaa idinka wakiil haddaad naga tihiin waxaan rabno noo doorta waxaan doonayno noo yeela qofkaan wadana noo doorta codkanaga ha meel maro xildhibaanada intaasaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay war meelaan joognaba inta hadda 9 beri ee dhiman qof walow waxaad meeshaad ka istaagi karta ka istaag dadka hataa afrika jooga inay banaanka usoo baxaan oy hadlaan oy dhahaan annagu shacabkii haddaan nahay ninkaasaan wadanaayo noo doorta idinka codkanagii noo haysaan ay dhahaan la wada istaago meelaha miidiyaha dadka jooga oo dhan intaasaan kolley dhihi lahaa ilaahayna insha allahu khayrkaana waafajiyo ilaahayna maslaxada hana mariyo insha allahu waan guulaysanaynaa khayr badan baan ku rajaynaa dacrow insha allahu walaashay kasoo qayb qaadashada الله كسيه إن شاء الله السلام عليكم dalka iyo dadka waxay u baahan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo adigaaga hadda idaawanaya waxaad u baahan tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sax wala la sax mise khalad maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalka iyo dadku waxay u baahan yihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ma runba ma saxba mise waa khalad ha iyo maya soo qor aniga waxaan u baahanahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo soomaaliya oo dhan waxay u madahan tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalku wuxuu u baahan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo diintu waxay u baahan tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sax maya yaha tuugo ilaahay ka furatay iyo tuugo daba dhilifa oo shisheeye kalkaal ah oo aan diin iyo dal iyo dad midna shaqo ku lahayn oo calooshooda taqaana ayaa dalkan waxay u diidan tahay inuu horumar gaaro marka ma aha inaan qabiil u fiirino waa inaan u qaadanaa cadow asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دار نبض نلول يا نبض ما شاء الله اللوانك جود ماليات ما شاء الله ولا العادي أدب كوس سلام يا إذا عدى حسب قبل الجديد بس هو عضي كوسعه هرا وكوسعه فرح أدب وكوس سلام يا شرف النور وكوس سلام يا سير محمد عادي يا أروح أنا من نبض يا نلول من عادي كو تاجر أو كو لصعد الله في هذا يا رهي maalintan waayo lafkaaga sida bunku ii qabtaa waqt ma sha Allah Allah ku raameeyo Allah ku sharfo Allah ku ciseeyo wada ciseysay Allah ku ciseeyo
دكتور دعو نيو هل شيء أو ير أو حنك عود سنة يا أنا أتكلم حساب مرك قارك ونهلا أنا كل شيء سمعت بشا وقرت واد أطفايس قرين كرتها واد إيش شيء كرتها واحد marka aad jigjiga iyo gaarisa lagaga soo duulay Soomaaliya أنا نري jigjiga ما واد ما هتصنتهاي واد ما هتصنتهاي هذه آد ما هتصنتهاي غير الله كسيو أنا dadka jigjiga iga daawada iyo kililka shanaad waa milaayiin ma fahantay original ahaan anigu kililka shanaad baan ka soo jeedaa dadkii inaga kililka shanaad kuwii weeyo kuwa magaalada ka soo kacdaana ku okay kuwa magaalada Kismaayo jooga waa kuwii oo xaggaana dadka ku leeynaya xaggana dadka ku neelanaya marka aan leeyahay jigjiga la inooga soo duulay nin aan jigjiga tagi karin ayaa dhufays ka dhigtay oo dad nool soo aasay ayaan ka wadaa moogi waan ogahay reer jigjiga intii jeel iyo meesha la yiraahdo kililka shanaad ummadda Soomaaliyeed kuwa ugu badan baa ku nool dadka Soomaali ugu jecel baa ku nool laakiin nimanka aynu maanta u jeedno ayaa waxay yihiin niman cadow ummadda Soomaaliyeed ku ah reer jigjiga iyo kililka shanaad ku ah ku soco waan ogahay inta joogto hadda maanta Kismaayo haysato horta waa intii waa sax waa intii jeel ogaadeen dadka ku gumaadi jirtay waa la iska ogyahay صح intuna hal shakhsi oo gobolka jigjiga ka soo jeeda kuma meesha la yiraahdo Kismaayo waa ku habeenkii takiishka dadka ku ridaan ay doon ku qaadaan badda ku soo dhex tuurta ku soo rida صح oo ku dila land cruiser inta loo wada gaday ayay maalintiina baabuurta waxay ku meeraan biyaha badda inta halkan ay niyu kala ka noqdeen ما شاء الله كسر كسر كقنعي أفضل بو سومالياتنا وكقنعي runtaan idii sheegaya ummadda Soomaaliyeed anigu qabiil ma haysto reer ma haysto waxaan haystaa shakhsi ama qof qabiil kamid ah oo qabiilkaas iyagana dhibaato ku haya shacabka Soomaaliyeedna dhibaato ku haya noomaata marka qabiilka uu yahay ninka dadka Soomaaliyeed dhibaatada ku haya waa ku dhagaa waa qanina xabadna laga bedel karo ku soco waad aragtay masiibada in haysato horta waxa weeyaan saddex meelood bay ka soo kacdaa hadaynu Soomaali nahay dhibaatada in haysata iyo munaafiqiinta iyo dabadhilifka oo dhan saddex goobood buu ka soo baxaa Soomaaliya صح insha Allah ma guuleysan doono waa baabii doonaan dabargoodii u dambeeyay hadda socda insha Allah ta'ala waa meesha waxa weeyaan gobolada dhexe la yiraahdo iyo meesha la yiraahdo Garowe Aranjaan iyo meesha saddexaad oo qabri daaro oo Kismaayo u guurtay saddexdaa weeyaan oo wax dhib Soomaali ka haysto صح saddexdaasna waxa weeyaan waxa la yiri dibi gowracan geeda kama waabtay ma oran jireen ay marayaan maanta waad aragtay kuwa ku dhaaranaya maanta waxaan daawaday kuwa maanta ku dhaaranaya inuu farmaajo ka haray tartankii dhaaranaya aan maanta daawaday riyo ku jira riyo oo haddana isagu isla daqiiqadii isburinaya oo waxa u sameynaya oo ugu dhaaranaya farmaajo ciil aan u qabatirti ayuu leeyahay farmaajo waa ciilay oo dantoodii buu ka hor istaagay wuxuu ka hor istaagay inay ciidda Soomaaliyeed qaataan wuxuu ka hor istaagay inay shacabka Soomaaliyeed magacooda wax ku cunaan wuxuu ka hor istaagay inay qaranka Soomaaliyeed siday rabaan ka yeeshaan ayuu ka diiday midda ciilka badda waa midaas laakiin anigu waxaan ku qanacsanahay dawladnimada iyo kala dambeynta iyo sharafta iyo nidaamka iyo qabka iyo dhirbaaxada uu cadowga ummadda Soomaaliyeed ku wado ayaan ku raacsanahay waa ku salaamaya walaalkay aan siiyo dadkuna waa badan wax yar isi jamhuurka Soomaalida nabad iyo nolol Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa niman horta niman baad la soo hadal qaaday maanta ninka la yiraahdo Iso Sheeg Ayub muxuu ahaa Cornel kan oo Morian Ayub iyo ninka yiraahda hebel wadani isku sheega labada nin
yeena u malaynin inay yihiin dad nabad iyo nolol ah. Waa fadlan igu shubo maanta ninkii ku shubta iska leh. ninka la yiraahdo isaga shiino culay isagu macruuf buu min awal ahaaba waa la wada yaqaanay oo awal buu isagu fadlan igu shubo ahaa, laakiin nimankan hoos bay isu qarin jireen. laakiin hadda waad aragtay inay fadlan igu shubo yihiin ayna wax jira ahayn. marka waxaan oran lahaa dad shacabka Soomaaliyeed ee nabad iyo nolol inay kala noqdaan dowga ay siiyeen balad dambana inaanay siinin. nabad iyo nolol inaanay isbedelin. nabad iyo nololiyada guul la samaxalla ما ninka u maleynaya nabad iyo nolol in ay madaxweynuhu hadoo toga ay tagayso waladeer waxaas ku riyoon ma xisbiga waa xisbi jira ama ku filla Soomaaliya ha ku guuleysto ama looga guuleysto xisbigu waa taagnaanaya wuu shaqeynaya waa xisbi taagnaanaya oo doorasho 100 sano 200 sano oo dambe shaqeynaya waa madaxweynaha waa laga guuleysan karaa waa guuleysan karaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ku karaa wax sidoodii waa ku deyn karaa anagu amaawiirta ilaahay ma faragashanayno laakiin waxaanu qiraynaa oo cadaynaynaa xisbiga qabnabad iyo nolol waa xisbi jira oo jiraaya oo jiri doona marka adigu ninkii ugu jiri jiray in laga guuleysanayo u malaynaya haddii laga guuleystay laazim xalla xitaa ugu jira yani in laga guuleystay maxaan kala jiray oo hadaba naga tag baan leeyahay hadaba naga tag haas ka socda hubadu way baxaysaa ana la joogin inaga tag marka ay socdaan dhooqay leeyihiin markay fariistaanna xareed bay noqdaan marka intaas ay calowga yihiin ayaa la kala baxaya annagu calowgaasaanu ku jiraynaa ilaa uu ka kala fariisto aad iyo aad laakiin waxa weeyaan aniga ilaahay kama dhigo laakiin hadiiba nabad iyo nolol maanta oo madaxweynaheenu soo bixi waayo horta ciidankan u baqayaa ciidankii Soomaaliyeed wad garanaysaa waxa weeyaan halkan waxa ka bilaaban doona mushaar la'aan iyo mooshin joogta baa ka bilaaban doona ciidankii marka taliyaha ciidanka insha Allah wadii maqli doono inuu maqlaa ilaahay ka rajeynaya waxaan kula talinaa ciidankaas inaanu kala burburin inuu isku dayo hatta haddii ka fursan weydo inuu talada la wareego haddii ka fursan weydo inuu talada la wareego intii laga helayo madaxweyne rasmi oo dib loo soo doorto oo wax lagu aamini karo inay talada la wareegaan waayo shabaab baa soo galaya mooshin iyo balaayo imaanaysa mushaar la'aan baa dhacaya balaayo oo habeen iyo maalin taagnaanaysa xildhibaanadii dilkii baa ku soo laaban doona oo nabadgelyadoodu waa dhamaanaysa insha Allah laakiin dhiciba mayso insha Allah dhici mayso marka gudoomiye aad iyo aad baan ku salaamayaa insha Allah ta'ala aan guuleysan doonaa xisbigeenuna ilmaha dhalay ilmahooda insha Allah kamid noqon doona hadii Ilaahay yiraahdo ما شاء الله السلام عليكم شعبك الصوماليات dadka ku riyoonaya nabad iyo nolol waa madaxweynaha oo kaliya nabad iyo nolol madaxweynaha ma nabad iyo nolol waa xisbi dalka Soomaaliyana xisbi u socda xisbigaana waa xisbiga ugu majority-ga badan ugu laandheeraysan ugu jiritaanka dheeraan doona madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mar walba waa gudoomiyaha xisbiga nabad iyo nolol mar walba waa musharax madaxweyne ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xisbiga nabad iyo nolol adiga marka aqoontaadu haday joogto fiiri adiga aqoontaada haday ku eg tahay ama aad tahay nin ama gabar aan aqoonteedu aqoonin wadista xisbi haday tahay waad liidataa SYL ilaa maanta magaceedu waa jira nabad iyo nololna waa sidaas oo kale magaceeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda waa jirayaan dalka Soomaaliyana looma hayo qof aan ahayn nabad iyo nolol iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo war qofkii iga dheeray aniga hayga boodo bal keena hal shakhsi keena waxaas qashin magaalada Muqdisho jooga iyo labadan garowe iyo jooga meesha la yiraahdo Kismaayo iyo Muuse Shaani kulligood intaad isku soo dartaan bal hal nin ka soo dhax saara oo aad istiraahdaan kaasa macnaha wax
ama qof shakhsi oo Soomaaliya oo ummadaan Soomaaliyeed 20 milyan matali kara ka keena car iyaga dhaxdoodu hal qof ha iska soo saaraan one person ha iska soo saaraan hal qof ha iska soo saaraan hay tahay 20 nin oo hal reer ah oo 63 qof 63 cod isku haysta hay tahay waxaas kalsoonidooda aaway hadduu isku kalsoon yahay Xasan Sheekh Maxamuud ama Cabdiraxmaan Cabdishakuur ama Geeli ama stupid kale hadduu isku kalsoon yahay 63 cod ayaa hawiyo dhan leeyihiin hay isugu haystaan waxa najaasada hay isugu haystaan السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدومي حلبان عبد العزيز فارح عيسى قدوميها حزب قبيلة ما شاء الله ولكن أبي بكون سلامية وكسر دوينيا وقت بغير هاي إن شاء الله تعالى كسر قيب قاضي محط قيب قاضي عبد العزيز نحر واكو سلامية أبو حسن واكو سلامية شهر قرايا كسر برنامج حدا نكون حيا أركي كودي صح كامبين كيمياء كودي جدا مس waxaan ka sheekeynaynay lacagta feega ee dalka Soomaaliya hadda la soo galiyay qoladan qaran dumiska ay soo sameysteen ay rabaan inay ku boobaan dhaqaalaha dalka ganacsatada xoolahooda kaga faramaroojiyaan kadib markii ay waayeen ama ay suurtagal u noqon weyday in ay doorasho xalaal ah galaan oo ay dhaqaalana waayeen wadamadii ay u naageynayeen dhibaatada gelisay ee u shaqeynayeen ay uga bixeen dhaqaalana waayeen lacag feega keensaday hadda oo raba dhaqaalaha dadka inay ku urursadaan doorashadana ku galaan xildhibaanana ku iibsadaan baan ka hadlaynay iyo dib doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo campaign garayntu ma harto sideedaba dad aniga ay aragto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo campaign garayntiisu way taaganta filna waxa ku taagnahay ku jira waa campaign صح ساووا أنا فيسبوك وحكي لو ما قالوا صح داد كلام هالله ورر كلام داود كامبين كليا وقلا ما شاء الله محل لا ده ومد الصوماليين ما حدش يجي ساعة وقاي السلام عليكم مكوتش تساولي قدامي المقرب عاون كوتشلا كسعة وركا كسعة وقت جوا يري هاي وقت جوا كويري وقت جا يسكلوا منن وقت جا كفايدس بانغتي نيو أرنتا هذا قروات لمن كان تلا يتصال يعقل منا ما هيان waxay kaga jirtaa kaliya in xilbaan la gato xilbaana marka nimanka maanta waxay ka maraysaa nimankii qaran dumis la dhahay ee shisheeye kalkaalka ahaa anigu mucaarad uma aqaana ma masaxnuuni cali waa ku salaamaya aad iyo aad baa ku salaamaya soo dhawaada insha Allah waxay ka maraysaa maanta lacag feega inay soo sameystaan oo ay rabaan inay dhaqaalaha dalka ku urursadaan oo ay doorasho ku galaan oo ay xildhibaano ku iibsadaan xildhibaano inay ku iibsadaan Cabdicasiis Naxar numberkayga waad haysaa waad soo wici kartaa si Rashiid Aseer waad ku salaamaya dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan waan salaamaya barnaamijka share gareeya aadna u share gareeya meel dheer gaarsiiya waxay maraysaa maanta fake lacag fake ah inay soo sameystaan qoladii qaran dumiska ahayd oo aad taqaaneen daba dhilifka cadow shisheeye cadow kalkaalka ah lacag waxay soo sameysteen fake ah oo ay rabaan inay ku baadhaan ama ku qaataan dhaqaalaha dalka nimankan horaan idinku sheegay horaad u ogeydeen dal iyo dad uma naxariistaan diin uma naxariistaan waxa ay ku shaqeeyaan waa sidii iyagu ay wax ku noqon lahaayeen ama ay horumar ku gaari lahaayeen ama ay madaxweyne ku noqon lahaayeen ama ay dhaqaalaha dalka ku qaadan lahaayeen caawa waxay marayaan inay inta lacag feega soo sameeyaan inay dhaqaalaha dalka rabaan inay ku qaataan lacagtaas waa shilin Soomaali inay dollar ku bedeshaan
oo ay xildhibaanada ku iibsadaan ayay la maraysaa waa ur ku taalo waa dhibaato waa cadow dhaqaalaha iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa marka oo aan ummadda Soomaaliyeed rabnaa inaan la wadaagno lacagta fiiga baa jirta nimankii soo samaysteen dhaqaalihiina yaan la qaadan barnaamijka labaadan meeshan u soo galay waxay ahayd oo aan rabaa inaan ka hadlo shacabka Soomaaliyeed u sheego munamagan aad baan ku salaamaya saddex nin oo aad nabad iyo nolol u taqaanin waa ridoobeen aadan adar shirwac waa ku salaamaya waa ridoobeen nabad iyo nolol waa ku kufriyeen waa kabtan Ayuub waa shiina culay iyo ninka la yiraahdo ii sheega magaciisa Caynaanshe milka ayay waa ku salaamaya waa ku kufriyeen haddaad ka mid tahay friendskooda ama aad follow ku tahay kala soo noqo nabad iyo nolol ma aha take them as an enemy of nabad iyo nolol cadowga nabad iyo nolol u qaata waa cadowga koowaad ee nabad iyo nolol waxayna kula dhex jireen munaafiqnimo ayay kula dhex jireen munaafiqiintii bannaankay taalaa maanta maama saxnuuni waad soo wici kartaa lambarkayga waad haysataa insha Allah taala waad iga soo wici kartaa waxaan idin sheegaa marka wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed Soomaaliya midka aad istiraahdo maanta kan ayaa Soomaalinimo u dhow waaba shaydaanka koowaad waaba shisheeye kalkaalka koowaad Fatima Maxamed Xuseen waa ku salaamaya waaba shisheeye kalkaalka koowaad عذر إيسا وسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan idin sheegaa marka ummadda Soomaaliyeed meel walbo aad dunida ka joogtaan Nadiira Maxamed waa ku salaamaya waxaad samaysaan nimanka la yiraahdo Kabtan Ayuub ninka la yiraahdo Kabtan Ayuub ninka la yiraahdo ii sheeg Caynaanshe ninka la yiraahdo ii sheeg magaciisa shiina culay kala noqda dhulka labada ugu dhufta barida dhulka u dhiga kuwa dadka ugu liita waxa la yiri dameeraha ugu xun ugu haraato kulul salaam calaykum calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh maama iwa maama saxnuuni waa ku salaamaya aad iyo aad soo dhawow TV-ga xisbiga qabyaaladiid ma sha Allah ku soo dhawow ku soco وداوليسان umaleynaya barnaamijku waa la socotaa laba qodob buu ku saabsan yahay qodob waa saddex nin oo ridda ah oo ka ridowday xisbiga nabad iyo nolol awalba munaafiqnimo ku dhex joogtay haddana ridowday iyo lacagta feega ee la soo geliyay dalka Soomaaliya waxaad kala socotaa horta waxa nimankan hadda ridowgu diinta xageedu noqonaya waana khatar ahkaamta dadaan islaamnahay ma dhahayna waa nagu caas سيوين باندهن كلمة هلكا وبدل وانكا عدسنا يا مامو صوبت حوي حق دينتا مركا نقطة حوغا أحكام خطر بانجلينا مركا نمن نقول عاسيوبي وانت العق نقستمي نقول كبري ويا لكن وحن تصيرنا الباب كانوا صحيرينا نبض ينورل إني قادنا ين العق صح ما فهمت صح هلكاسان عدسنا ديسلايك وين لا سارا قف كستا oo diin iyo iimaan ku jiro oo sharaf ku jirto oo dignity Soomaaliyeed iyo is Soomaaliyeed ku jirto bisalaaga saaro waqti abha looga dhigo صح nacamtaha ogaadeen waxa la yahay ama buur ahaw ama buur ku tiirsanow صح nimanka buur bay ku tiirsanayeen laakiin buurti baa laga hoos riixayaa hadda waa laga hoos riixayaa insha Allah absolutely hala dilaya we kick out as soon as possible ما قرأ صح نما نو باهنين وما باهنين هذا يوين هذا وين نبدي ينرل قفان يدا u baahnayn uma baahna shalay Soomaaliya ka qaxday adaa dadka ugu liita tahriib baad gashay gaajaad ka carartay adoo badweynta Mediterranean-ka u jeeda ayaad gaajo darteed adoo gaajo ka ordaya madax isugu riday ka Ayuubow maantana kuwii wax ka dhigay ee xitaa markaad shilka gashay 20 milyan ku soo garab istaagtay ku soo duceysay ee Ilaahay ducadoodii ku aqbalay ayaad maantana ku caasiday
ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa marka meeshii shalay aanu kaa keennay inaad dib ugu noqoto waadna ugu noqonaysaa reer nabad iyo nolol waxaan ka codsanaynaa marka inay garabkiisa ka baxaan garabkiisa ka baxa نعم dislike نعم iyo unfollowga iyo rabshada iyo balaqbalaqda isagaa ilaahay rasaas ka bariyay ha ku raaxaysto riinka kaara haddaba وكا هذا لكم صح وكا هذا لكم adeerka yamyam wuxuu ku yiri hadii ay ku moosaan kartaa la isku muuja nimankaas inay namoosaan bay isku daray dad badan baana isku dayeen nabad iyo nolol inay isku dheeriyaan Soomaalida waxay ku maamaadaa baqashi farda la mirata dhigooda ismooda marka baqal farda la mirtay bay noqdeen ma garan anigu xana caawo ma sameeynayo fahmaysa sideedana qofka bil aadanka ah hadduu sida weedarka hadba nooc naacawda u raaco waa laga haraa sababtoo adigana waa nin baa waxa laga sheegay geenyada ordkeedaan arkaayo wuxuu yiri inay ridaaban ka baqaya saqalaheedaan arkaa ma garan warba maqlays si fiican midda kale shiino culay iyo ninkan la yiraahdo kabtan ayuub labadooda nin xataa in la isu dila anigu ma qabo sababtu waxa weeye fair and balance xaq qofka bini'aadamku ku hadlaa rabaa shiino culay wax jira ma aha he's not exist waa he's nothing halka rubadu wax ka maqlaa hadda maalin dhaweyta wuxuu qofku ag taagnaayo naftiga dhacdisaan qoslaya keebuu ahaa talow qofkii dibadda inta aaday dawladda ka tirsanaa mise mucaarad waa ra'iisul wasaaraha والرئيس الوزراء باهنا أتري أو ديارات أقاطي مركي لغلها شريف وآذي أو وحو آذي أرماء أبارها أرماء أبارا ما أهين وحو آذي إنو ننكا إسكسو أمسيو هالكا وحكسو مقشيو وأنا كسو مقشيو لا إله إلا الله محمد رسول الله وحي إلفنا يكون مقصد حتى ما يفهم هذا الشيء علي بس وكيلها مركو مقدشو كسو النقضي shiina culay baa wuxuu yiri dhinacaygu ka baxay dartii buu aaday inuu soo aamusiyo shilimaan soo siiyo oo uu caada qaatanimadiisa soo siiyo oo isaga oo reer u gumaysan ilaahay baan kugu dhaarshay shiina culay yuu ka soo jeedaa maanta dadka xuquuqdooda la duudsiyay buu ka soo jeedaa la baabashay oo bari lagu baabashay buu ka soo jeedaa waa ninka kaliya meediyaha ugu jiray reerkaas maantana wuxuu noqday caada qaata shilin qaata ah odayaasha isaga adeeradiisa ee Saciid Cabdullaahi balbalaan guriga u farfadhiya iyo isagu waxba isuma dhaamaan waa reerka uu ka dhashay ka tashta noocaas oo miran baad ka dhashay sax dacro ma maqlaysaa aad weyn ma maqlaysaa ma ali waa ku salaamaya walaashay ku soco bashaaro waa salaamaya ay miss you mama bashaaro waa ku salaamayna soo gal baan ku rir dagaalka haduu bilowday soo gal hurda ma jirtee waxaan ku leeyahay shiina culay horta waxba la sheegay horta niyo Soomaalida waxa ku maamada dabala geela 10 bay ku tahay horta shiina culay reerka aan u maslaynayna inuu ka dhashay sida daahir cali soo kale meel kasta ay la tagta caawa ma garan ku soco waxba ha reeban ma dagaalku waa haddu bilowda wixii hore 6 sano dagaal ma jirin فايلانسيغو هادو بلان نينكي wax ka bedeli kara waan rabnaa inuu wax ka bedelo waxa ka qaban kartaa waxa ka bedeli kartaa anaga kabaha la kormarayna way maqlaysaa sax ayaga hoggayaga noogu soo galay marka ayaguna waxa la waxay ahaayeen wixii daboolaaban anaguna daaha ka rogayna wuu keeris ma garan sax qoladii geelu ka jajabaan arki doonaa ma garan sax shiina culay meesha daahir cala soo reer macalluq wax ugu jira oday kaari iyo ma dhalin waxba la sheegay ilaahay baan ka magan galay ma garan waxaadna arkaysaa hadii mar qof lagu dhaw magaciisa la helo baa la dhahaa iyo kan waa baahan yahay iyo kan wax dhalay lama yaqaan iyo wariga iyo Allah tirsiga ku darsan waayo sababtu waxa weeye gaalada hadda wadamada qurbaha waxa la dhahaa qofka markuu dambi galo oo la soo xiro mental abuse ma qabin ma la soo abuse jiraa la dhahaa sax haduu criminal ahaa xabsiga 10 sano looga dhigaa waxa la qofka hore u soo dhin marka shiina culay iyo daahir cala sow iyo baahana iyo dad intay weeyo markii hore inta la soo cunay muxuu ahaa kabaha lagu la soo duntay oo
reerahay ka tirsanayeen bay inkireen inagu dadka inaan ka harnaa rabnaa marka laakiin ninka la yahay Kabtan Ayuub waan haysanaa meel alla meesha la gashaan la galeynaa shiina colay qole uu ka tirsan yahay male hore aybu abayuus u qabay meeshu ka tuugsanayaa ka tuugsado inkaar waa ku dhacday faraha looga qaada halkaas magaciisana naga daaya sababtu waxay leeyahay dhicirsi sheegsheegiisa ba ka sida daahir calasow uga harbaa ku sida baahana looga sababta baahana maalinkii ra'iisul wasaaraha loo doortay hal maraha waxa leeyahay waa baahana wax la leeyahay laba yaqaan exactly sidii buu nagu noqon صح marka dadka halka uga har daahir waxaan haysanaa Kabtan Ayuub oo anagu hadda reerku ka soo jeediyo wax qayla aysan ka imaan Kabtan Ayuub waxaan u sheegaynaa gabdhihii shala markaad figaysnayd Liibiya Ingiriiska joogay oo ka soo furay xargaha lacagtana dhiibay adoo eedada iyo adeerka midna aanayna Soomaali weyn aha صح waliba dad isu xigaan gabdhahaas madaxweynaha maanta wadanka ku fadhiya صح yaa lacagta ka dhiibay صح Kabtan Ayuub markuu haarihii iyo boogihii ka biskooday صح oo xoogaa diiftii muxuu ka bacday ayuu wuxuu ka bilaabay madaxweynaha iyo intii la dhalatay inuu caayo Soomaalida waxay ku maamada ciirtaada dhamacaydaada yaqaan marka waxaan Jaanis baan siinaynaa hadduu soo laabto nabadii noloshiisa kama فيري مامو واحد جانس اللي يراهدو oo la bixinayo ma jirto calow waa daadis marba haday calow leyso waa daadis barta looga haynaya ilaa uu apologize ka dhiibo oo uu ka yiraahdo sorry uu ka yiraahdo bartu ka hayo ayaa laga hayaa nabad iyo nolol cidna uma baahna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo milaayiin Soomaaliyu haysta cidna uma baahna noocaas oo kale isagoo xaara leh oo maanta la yaabanba maanta wuxuu la yaaban yahay inuu gaari wato wuxuu la yaaban yahay inuu dhar qurux badan gashto wuxuu la yaaban yahay inuu sawir iska qaadi karo oo sawirkiisu la qurxoonaan karo wuxuu la yaaban yahay inuu guursan karo horaan u soo aragnay isaga kuwa la mid ah dalkan South Africa joognaa waxa ka dhacday hadda ka hor in nin wadankan yimid oo iska reer baadiye ah ilaahay tukaan iyo gaari isku siiyay markaasuu maalintii dambe highway fuulay telefoon baa mid Soomaaliya uga soo diray markaasuu rabaa inuu u faano wuxuu ku yiri wareede dukaankaygii baan u socdaa gaarigaygii baa ii raran highway baan saaranahay hadhow igu soo celi ninkii airtime-tii wuxuu kaga dhameeyay intii buu kaga dhameeyay ninkuna isaga nin wax ka rabay buu ahaa marka Kabtan Ayuub maanta waxay ka maraysaaba ma adigii baa video laga daawanaya ma adigii baa 3,000 oo qof ku daawanaysa sidee wax u jiraan ma adigii baa gaari wata ma adigii baa sawirkaani mise waa qof kale surprise buu ku jiraa because the life start from nabad iyo nolol waa markaa life start from nabad iyo nolol noloshiisuba nabad iyo nolol bay ka bilaabatay and marka waa nin u haystaba maanta in uu adduunkii oo dhanba kala hayo ma oga waxa kala haya inuu aniga yahay oo u sheer garaya oo daawada inay maama saxnuuni tahay inay wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee wanaaga iyo sharafta jecel tahay ma aha mooriyaanimadii uu ka soo tagay waana ninka maanta Soomaali ugu liito historigiisa la hayaaba taariikhdiisa la hayaa meeshay ka soo bilaabatay iyo meeshay ku dhamaatay iyo meeshuu saaka taagan yahay waa nin mooriyaan ahaa oo bari reer bariga iyo dadka majeerteen ku leeyin jiray waa xaqiiqa oo qabiil u leeyin jiray waa nin tahriibay waa nin maray meesha la yiraahdo Liibiya oo gamagafa wuxuu raba ka samaystay waa nin saxaarahaad aragtay gaajo darteed ugu bareeray waa ninka badda Mediterranean-kaad aragtay gaajo ugu bareeray sharaf iyo karaamo Yurub kuma aadan tagin waxaad ku tagtay waa daaduun iyo gaajo iyo waxaan anigu marka aan tagay Khartoum gaariga la raacayo marka aan arkay aan wargaajo ma haysan raaci maayo ayaad ku tagtay maanta kuwii wax ka dhigay umadii Soomaaliyeed wax ka dhigtay wiilkii iyo gabadhii Soomaaliyeed xarig ka soo furay ee haaraha ka tiray inaad maanta aan madaxweynahoodii hadda carow ninkaas horta ninkaas wuu ceeboobay horta ninkaas war qof walba oo malabkiisa haya ha keeno Kabtan Ayuub qof walba oo malabkiisa haya sawir uu leeyahay haya wax uu ku sugnaa haya aniga ha ii soo diro أنا ميريها سوق لنا أنا عندنا كعب سنة إلهي كبعة بس وصعب ما يساس ويا أنا وهذا أنا شقت جينا أول واسكه ورودني
horta midda kale ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa nabad iyo nolol 15 bari oo hadda maanta la qabtay doorashada nabad iyo nolol ma nabad iyo nolol waa xisbi ila adduunku intuu joogi doona haddii alla idmo annagu waa dhimanaynaa waqtiga iyagu waa iska time is running out waqtiga iyagu wuu socdaa ma fahmaysaa laakiin xisbi jira oo jooga oo nacamta ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 99 ay ku midaysan tahay weeye waxaana hogaamiye noo ah oo ruuxillaahi noogu ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ku xiga oo xisbiga maamulkiisa iyo gudoomiyihiisa Mahdi Guuleed Qadar halgamaaga la loodin waayay oo 65 sano xukunkaanu dhisnaaba kursigiisana haystay wax xumaanan aan wariga laga soo sheegin Mahdi Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenka ma garat intanada kalena follow up baana ma garanaysaa صح ilmaade riyaalo marka horta qofkii moodahaya nabad iyo nolol inay tahay 10 bari oo ka hartay doorashada war ma aha ha ku kabsoomina ana ku lumina ana ku ambanina nabad iyo nolol waa xisbiga xaakimka ugu sareeyo ummadda Soomaaliyeed ilaahay baa u sareeyay adduunka laakiin ummadda Soomaaliyeed xisbiga nacamti igaara fiicay ka dhax ah waa nabad iyo nolol kuna seexda kuna soo toosa waana jiraynaa waana joogaynaa inta dhimatay ma inta kale ana shaqaynaysa qaar baa waxay ku riyoonayaan madaxweynaha haddii laga guulaysto nabad iyo nolol way isku dhamaatay war mucaarad baan noqon rabnaa war yaa ilaahay yaqaana mucaarad baanu noqon rabnaa hadda muxaafid baanu nahay haddii aanu guulaysano muxaafid baanu nahay haddii aanu dhacnana mucaarad baanu nahay madaxweyne nimanka hadda mucaaradku sheega ay daba dhilifka ah ayaanu waxaanu ku noqonaynaa mucaaradka asalka ah waxaanu baraynaa waxa uu mucaaradku yahay ayaanu baraynaa haddana dawladnimadu waxay tahay baanu baranay haddana waxaanu baraynaa waxay mucaaradnimadu tahay carha qabtaan kursiga nabada mucaaradka waxaan baraynaa mucaaradku nooca uu shaqeeyaan baraynaa sababtu waa jaahiliin wax la boobay bay wuxuu mucaarad yahay baanu baraynaa aniga dacar nabad iyo nolol waxaan soo socdaa Soomaaliya markuu nin kale kursiga ku fariisto mucaarad baan nahay mucaarad xaqu iga mari doona anigu waliba mucaaradnimo aan Kenya indhaha ka garaacayo ka kursiga ku fadhiyana aan dhagaha ka garaacayaan sameynaya ee mucaaradnimo aan Kenya taageerayo ma sameynayo تعرف صح نبع عارضنimadu waxa weeye gobolada iyo isteediyada iyo degmooyinka iyo nacamti waxa nacamti ila small town ka u dhaadhac qabile muxuu ahaa waxa la dhihi jiray Soomaaliga wixii lagu dhihi jiray waxay ahayd nacamti meel kasta oo magaalo Soomaaliyeed ama gobol Soomaaliyeed baawir ilaahay baa laakiin baawarka nabad iyo nolol baa wuxuu ka yahay 100% qofku markuu gobolkii kaaga adkaado oo degmadii kaaga adkaado oo tuuladii kaaga adkaado magaalo madaxdana ogow biyo karkarayo kugu shubaya nabad iyo nololna waa mid taa yeeli kartaa صح marka waxaan u sheegaynaa Ayuub Kabtan Ayuub ninkii dani ahaa oo Puntland kabaha ku aasay oo nabadoonku ugu wasiirkii arrimaha dibadda ku weeraray gaalkacyo oo nabad doonki ka dhaqaaqayay reer gaalkacyooda maanta xangulaha inta la gooyay uu Turkiga yaalo Kabtan Ayuub maanta dufan inta soo qaato inuu dadkii ummadda Soomaaliyeed iyo nabad iyo nolol la soo hor fariisto shay ma Ayuub alle Ayuub fahmaysaa صح in maanta calaq loo tuuro asagoo Ayuub nin anaga iga yar ma aha waa 40 iyo dhowr jir sano konton ku dhawiyaa waa xurduqdiisa arkin ma gara فهميسا عقل وسو كردهيانا ما جيرو قبري بو كااديا موغي صح waxa weeye maanta calaq inuu ku qaato Yaasiin Cabdi Samed oo xangulaha la jaray oo nabadoonkii gaalkacaya ka iftiimayay inuu maanta calaq inta ku soo qaato annaga niiq nala soo hor istaago horta ma ka qaadanayno halkaasuna nooga dhintay dislike-ta hala saaro cancel-ka hala saaro xitaa YouTube-ka hal dacwadaha laga gudbiyo meel alla meeshii la rabo aqraa loo dhaadhiciyo anigu qaybtaydan ka qaadanaya everyone ha ka qaata qaybtiisa sababtu waxa weeye qofka hal la bara wuxuu yahay wiilkii gabiyay dalkana bara dalka bara inuu rag leeyahay hayna daayeen gabaygi wiil Cabdiwaahid Gamaadiid la dhaho soo reer Soomaaliland ku gabya soo Kenya u hanjabahay marka inaan barno nabad iyo nolol
inay waddanka nacamti majority ka tahay oo xisbil xaakim ka tahay waa inaan barnaa waa inaan maanta marada dhexda ugu xirannaa wax alla wixii niiqay sababtu waxa weeye waxa yar yar hadday soo toosaan kuwa kale waaweyn baa hunguri damcahaya marka kanaan quusinaynaa finaaqyada yararkaan quusinaynaa kuwa waaweynna iyagana iska daa iyagaaba dib u laabanaya nimankii muxuu ahaa xaraash qaran waxaan arkayay iyo ninkii dani duunyo oo dani yimid oo dab lama shidan oo maanta lagala wareegay Puntland oo reer Puntland ay xornimo u hadlayaan oo qof kastoo reer Puntland ay umaygi soo qabsaday awal loo diiday oo madooba baray ilaa dani maalinkii kursiga lagu fariistay madoobu la shira shaydaankii joogay Kismaayo qaxootiga habuu la shira wuxuu baray dadka in la caburiyo dhaqankii Itoobiya bara dani dhaqankii Itoobiya TPLF ku dhaqmaayay qofkii hadla hooyadiisa la kufsanay xabsiga inta la geeyo qofkii hadla asaga xabsiga la geynayo qofkii hadla ma waxaad aragtay wiil sawir qaaday oo leeyahay waa criminal xabsi daayan lagu xukumo hadda Puntland waa wada free sida farmaajo muqdisho free uga dhigay oo wax alla wixii joogay say u caytamahayeen markii dambe inta daaleen wax muqdisho ka caytamaya maanta ma jiraan soo moogay idan baa la wada yeeshay may maqlaysaa صح Puntland waa u bilaabat ayaguna markay ruuxaantu ka degta say u dagaalamahayaan oo idaacadahooda ugu doobiyayaan ba iyadu sida reer muqdisho u aamuseen bay u aamusi doonaan sababta qofka markii la caburiyo cuqdad buu qaadaa qofka hadii la fasaxana markuu daala asaga iska aamusa reer magaalnimaduna waxa weeye waa mid madaxweynaha xafidullah maxamed cabdullaahi farmaajo sameeyay qofka inuu hadlo iyo inuu hindhisto marna hadaadan fiirin waxa la yiri gafuur maalmeed ninkii dayuu dhibaa kahameynimana muxuu ahaa ninka buuruu dhibaa sideeda farmaajo wuxuu ku dhigay aba fiirinba markii dambe ilaa idaacadaha la soo fariisteen muu noo jawaab saasa loo galaa reer magaalnimo ma garan iyo adkaysi iyo dulqaad hadda reer Puntland maanta waa xor kulligood waa xor karaash baa madaxweyne ka ah ilaahay mahadiisay joogaan raha u dhooqle roob baa u daay dani markii alla ka dulqaaday dani maanta wuxuu u yeertay mid xun oo finaaqaho oo marxuun oo jikada joogay alawaada ku jiray jikada ninka la yiraahdo muxuu ninka qaxootiga Kismaayo joogo adoontu ku hayso inay sayid aadan buu yeertay sayid aadan muxuu maanta muxuu soo kordhin karaa maanta muxuu qaban karaa waxa la diqsi urur yohan bujuwa aan bishaara soo qabo waa ku baryahay bishaara soo qabo halkaas aan uga baxaya waxay qaadayaan mare shimbirayo heesa xafidullah xabiib malaayiin baana soo noqonaya oo seexda ku soo toosa 7 bilood miyay ahayd mise 7 bilood ka hor baan ku riyooday idaacadda waxaan ka sheegay YouTube-ka wiilkaana uu haysto ninka la yiraahdo Xasan Wali marxaatigu iiga iyo codkaygu oo duubanna uu hayaa waxaan ku riyooday shuur oo inta isu timid meel kasta isaga yimid saa dushooda uga dulqaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo ummadii Soomaaliyeed saa celebrate iyo dabaasheed ay ugu jirto insha Allah tiba ana dhacaysa diinta u baahan farmaajo dalka u baahan cirdiga wadanka u baahan cirdiga Soomaaliyeed ba u baahan ciidanka yaga u baahan ciidanka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa nin maanta isku daya doorashadu intay dhacayso inuu humbalin iyo bumbo meel ku tuubo waa idinkii liidnimadiin baan leeyahay maanta waxa loo socdaa waa mushaarkiini maanta waxa loo digdiglayaa ciidanka Soomaaliyeed oo waa idin jecelahay waana idin codsanayaa maanta waxa loo dirir leeyahay wuxuu waxa la iga qaban waayay qarqarsiga ku jooga meena qoobsaclay iyo qoon kale oo ka liita war ma maqasha maanta waxa loo dirir leeyahay waa mushaarka ciidamada iyo xuquuqdooda iyo agoomihii laga dhintay mushaarka la siiyo maanta waxaan rabaa ciidanka Soomaaliyeed oo xuduud inaad ku qabataan habarti isku dayda meel inay ka handhisto kabka karaysa afka in laga galiyo waayo waxa tuugadu u socotaa xoogaaga bangiga yaala tuugadu waxay u socotaa muxuu hay'adihii la dhisay tuugadu waa aragteen baahana warqadaha u saxiixayo hebel shaqadii baan ka ciirshay waa nin dhintay oo shaqo qof ka ciirnay xagee ku aragteen hisdeed wax jiro abuuran maaha ciidu wax ka ciirin kara male soo danjir soo dan manajay tuug ba aniga maanta wuxuu ka ciirnayaa ninkii dhamaa oo doorashada loo dhiibay inuu ilaaliyo xijaar iyo shaqadii baan ka ciirshay ma khayadi muufada taa loo maray siyaasa muufa maaha
soo qabar gabadhay halgamaaga iyo inta kaloo ما شاء الله وانكو سلام يا أد باكو سلام يا ماما غير الله حفظ الله waxaan kuu sheegaa marka Saciid Cabdullaahi Balbalaad oo maanta raba inuu madaxweyne noqdo wuxuu madaxweyne u noqonayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee uu few days ago uu lahaa harimacad bahalo waxaan kala nooca aniga sida loo soo sameeyay ma aqaan waa ka cabsaha uu lahaa kuwiiba u socdaa oo raba inuu madaxweyne u noqdo markuu madaxweyne noqdo hawsha u horeeya uu destroy gareynayo waa askariga Soomaaliyeed ee maanta sharafta karaamada qiimaha haybada dadkaba sanku neeflahaba isagu ugu sareeya meesha labaad u socdo waa inuu ciidanka qaranka Soomaaliyeed isku diro sidii kuwii Puntland kuwii daraawiishta iyo BSF-ta inuu isku diro oo ciidan dhan oo hal meel ka soo wada jeeday oo iyagu walaal aha inta iska hor keeno uu isku baabasho meesha labaad u socdo waa shilinka Soomaaliga ee uu caawaba bilaabay inuu isagoo feeg ah magaalada Muqdisho soo geliyo dhaqaalaha gobolka Banaadirna ku urursado midda saddexaad u socdo waa hooyooyinka magaalada Muqdisho ee maanta nool inay yiraahdaan dani hortiis dab lama shidan dani dabadii dab lama shidan yaa ka aqli xun marka wariyaa adoonkan ka aqli liita qofta ka aqliga liidata adoonkan ina balbalaad ah waa kuma waa siyaasiga hawiye halkaala waa habarta hawiye guriga xaaraanta ku jirta waa wiilka hawiye ee alkuriistaha laga dhigay ee maxaan cunaa taagan runta ku sheegayaan dalkan iyo dadkan 12 hotel jaxiimo joogan uma baahna Saciid Cabdullaahi Balbalaadna haba sheegin dalku wuxuu u baahan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo war qabiilku ma taageero isku reer ma nihiin Soomaalinimaan wadaagnaa waxaan ku taageerana waa sharafta aniga iga muuqata ma ahane waa sharafta ka muuqata wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee askariyada ah ama askariga ah ee shalay la lahaa $100 manaada qaaday guriga habarta aad yaa dhahay nin aniga igu reeraa dhahay Xasan Sheekh Maxamed oo duuban tahay media taala anigu kama sheegayo been kama sheegayo السلام عليكم صح oday waa shay oo ayaantaan oo dhan fadhii jiray idaacadan xunta oo mooriyaantu leedo goob xunjoog oo ay goob joog ula bixin Soomaalida damiirka loo taqaan goob xunjoog oday la dhoo Xasan Sheekh oo dhaha jaamacadahan wax ka dhiga waa xayawaan kaasi bini'aadam odagaas arkaas ha isku ceebeyn maamo arkaas maama ha isku ceebeyn madness maanta dani baa u yeertay dani dunya maanta u yeertay odagaas waa odagii diiday 13 kursi oo ciilkooda aan la seexan waayay hadda oo aqalka sare oo gobolka Banaadir la siiyay waa ninka yiri Puntland oo aan raalli ka ahan yaa nala siin odagaas hawayaanka reer Muqdisho iyagoo wali ka hadlaya ma arag ayagoo ka mudaharaadayana ma arag adduunka qoonkii masiibo loo soo hormariyana masiiba ku dhacda odagaas bullaacada iska horleexiyaan caawana danigu hor fadhiyo wuxuu maqaamkii Muqdisho aan u doodaynaa 13 kursi oo Muqdisho iska lahayna daad ku laqsiyo waa diiday waxaas ka hadla qashinka oo dadka u sheega 13 kursi baa Muqdisho yeelad gobollo dhan baan 13 kursi helin oo aqal sare ah maxaa ka maqnaa Muqdisho madaxweynihii ku dhashay oo xuduntiisu taalay baarlamaanka ka codsaday wuuna saxiixa ayadoo saxiixan bayna maanta baarlamaanka hor taala dadka diiday waa Xasan Sheekh dadka diiday waa in Cabdishakuur
dadka diiday waa hotel al-Jahima inta joogto dhan iyo odaga bullaacada oo fayraska oo jaamacadaha wuxuu u sheegay ana garanayn caawana dani duunyo hortaagnaa dani buu wuxuu ka baryayaa maqaam buu caawa ka baryaya ilaahay inkaar ku gurid warnabad iyo warsan qaracan baan u baqtiyay ayya السلام عليكم ninkaas xasan sheekh baa la yiraahdaa ma aha nin sharaf iyo karaamo iyo haybad leh ma aha nin macnaha aqoonta uu sheeganayo xitaa leh ma aha waa qof iska reer baadiye ah aqoontu marka ay reer baadiye gasho uu ku yiraahdo qof reer baadiye ah aqoonaan leeyahay markuu ku yiraahdo aqoontiisa xabad kama jiraan aqoonta lama sheegto la yiraahdo lama yiraahdo aqoonaan leeyahay ee dadka ku sheega waa inay dadku ku yiraahdaan qofkaasi aqoon u leeyahay ninkan jaamacadaha magaalada Muqdisho wax ka dhigaale ee jaamacadaha bililaqada dhiga ee guriyihii dawladda Soomaaliyeed ee iskuuladii ummadda Soomaaliyeed ee boobka ah jaamacadaha laga furtay wax qabyaalada lagu geeyay ee professor banahay indhaha professornimaha ka rido ilaahay cadaabta ha ku geeyo aniga aan ka hadlama rabinba ma masaxnuudi waa soo gelisay beesha laakiin waxa ku sheega qof walba oo Soomaali waxa uu sheega odagaas xasan sheekh lagu sheegayo waa fake professor وسيد كلب إلهي درتي حقي سحتها كمان نور وشخص انتي وضعيفة دوني ده نسكت شو جواه مركا دولة وما أنتم مشاركة كقابته ونكد كده بدقن عدي دكتاتور وياي محمد عبد الله فرماجو كو كاسو مشاركة كتير سواء واحد على قصة مين وان السلام يا جماعة شعبك الصوماليات نور البودين على ذا كتشوفتان وحلبانكي شعبك الصوماليات حلبان دعرنا بدي نور فنك الشيك هنبقن وحال دي شيء كابتن أيوب ديسلايك غير نبض ينرل جماهير النبض ينرل حقوق وطنيين تا حلقوا قاضو والشمسي كابتن أيوب عياو حقوق بهاي إن والشمسي لقوا قاضو يوتيوب كا يبيج كا يبروفيل كيسبا انت بقى هلا الرجو هلا جسوا الرجو labada maalmood soo socota arintaas aan ka hadli doonaa boostiyaal badan waa soo dhigi rabnaa oo insha Allah taala dislike tiisa ha socoto labadii nolol waa ka baxay uu ku caasiyay wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee taageerayaashiisa ahaa ee garab taagnaa ee wanaaga iyo Soomaalinimada ku garab taagnaa ee rabay in uu dalkiisa iyo dadkiisa u halgamo markay magac iyo sharaf u yeelaan ayuu ka baxay laakiin wuxuu yiri geel caruuri qaaday ma dheera nimba nabad iyo nolol ku xiran like-tiisa iyo share-kiisa iyo follow-giisa ay nabad iyo nolol ku xiran tahay way nabad iyo nololna waa family iyagoo 20 milyan waa isqaanaan qof walba oo nabad iyo nolol sheegta oo karaamo iyo sharaf leh oo cirdi leh oo Soomaalinimo leh waxaan u sheegaynaa Captain Ayub dhulka hala keeno dhulka hala soo dhigo war ma ku ballanay haaya ma soo qora saacada aad daawanaysaan markaanu barnaamijka ka baxno hal lagu yaaco dhulka hala soo dhigo inay kanaaca ku dhacday oo kale dhulka hala soo dhigo ayre fadhiid socod bartay fooraqdiisa looma joogo karo fadhiid socod bartay fadhaqdiisa looma joogo karo nin liitay oo daciif ahaa oo Puntland kullayn jiray wiilasha iyo gabdhaha reer Puntland ku xasuuqi jiray oo qabyaalad u dil jiray gaajo awgeed iyo cadaawad awgeed iyo colaad awgeed uga haajiray oo Afrika dhex jiray saxaraha Afrika ugu weyn dhex jiray oo Liibiya tagay oo magafe maalma haystay Mediterranean-ka badda aad aragteen gaajo darteed biyaha isku tuuray oo markuu Jarmalka tagay Ilaahay wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed naxariis u dhaxmariyay oo maanta ismooda bahal libaax inuu isagu wax samaystay inuu isagu wax iska dhigay ayaan waxaan rabnaa inaad dhulka soo dhigtaan wuxuu yiri ninkii sididaada moogiye dhul dhacaaga hooso war Captain Ayubow isu qaba aan loo qabinow
meesha aad taagan tahay horta yaa ku geeyey wuxuu yidhi war horta yaabaya wiilka yaa dhalay anigu yaabaya kabtan ayuub meeshaad joogto yaa ku geeyey midaasaa la iska rabaa nabad iyo nolol baa ku geysay wiil iyo gabar soomaaliyeed baa ku geeyey sharafta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajoad ku tagtay ee sharaf iyo karaamo adigu aad leedahay injirow kumaa tegin anaa hadda rugta kaa daba geynaye waa la hubaa taasi aamina mamos waa runta waaba dhici kartaaba in lasoo kufsaday nin saxaaraha liibiya maray tagay tripoli ee magafa helay la ima kufsan ani maba yeelaayba taas sawir hadda ka hor video hadda ka hor aan daawadayaa jira oo la dhihi jiray waa kabtan ayuub iyo waa qof kale la is dhihi jiray ninka sidaas loo soo galay ee sharaftaas gaaray heerkaas gaaray waa qofka Soomaali ugu liita anigu waxaan u aqaanaa qofka Liibiya maray ee saxaarahaas maray ee baddaas isagoo u jeeda dooni aad box moodo inta fuulay gaaja saartay ee duruufi saartay waxaan u arkaa inuu yahay qof noloshaba suusaar isku xiray gadaashiisa waxba ka waayay meel uu ku harsado Soomaaliya ka waayay innaba haday jirto meel uu Soomaaliya ku harsado haduu ku ogaan lahaa saxaaraha maba mareenba ma gefe gacanta uma galeenba haduu og yahay meel uu ku haro ninka nolosha soo maray that is the hardest traveling in the world ayuu maray sababta marsiisay maxay tahay baahi baa marsiisay runta ku sheegay maantana wuxuu u qaadan laayahayba gaariga uu wato iyo guriga uu degan yahay iyo telefonka uu wato iyo live-ka uu soo galayo ayaaba waxay leeyihiinba wax kale ma aniga saan ah ma aniga saan yeelay ma aniga noocaan u baxay ma ana dadnimadaydu saan noqotay uu taagan yahay waa fadhiidkii socodka bartay marka inta lagu sheegay caawa laga bilaabo aniga isaga ay isu kaayo surantahay afxumo wixii dacar la igu bixiyay oo dhan oo aan umada kale ka ilaalin jiray ayuub baan la kor fuul rabaa حيوب حيوب ضف الله ما الله كرفول رب تالي شيء لقى بالله عاور وحيوب بالليل هذا وحيوب واد حوب سيبة على روح عداته لكن ما حنكون شيء بوساسو هذا ما كقيل هي بعد لا قال قوسين قرناقهم ما كقيل هي ما حد قال حرديدي ku sheegaya wiilkay gabadha Soomaaliyeed meel badbaadinta dacaladeeda ka joogtaan FIFA nabad iyo nolol guul iyo gobonimo qof walba oo wax ah hadaad aragtaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee reer nabad iyo nolol ayaa ka dhigay kabtan ayuubna waxaan u sheegaynaa waa soo degaysaa cayayaanka baraha bulshada ku helaya mar dhow waa kugu soo yaacayaan si ka qaadayaan cayayaanka wax ku noqoteen cayayaanka baraha bulshada cayayaanka baraha bulshada CBB أنا نبضي النور ما شاء الله قول يقبلني مدحوين محمد عبد الله فرماتشو حفظ الله حفظه الله كراميه الله شرفه كان نحن نفته واه لما هيو قف كله وضل كان يدد كان هجامين كرام لما هيو وانا سلامة يا wiilashii gabdhaha Soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan wax xildhibaanka shacabka Soomaaliyeed xildhibaan dacar nabad iyo nolol runta sheeg hana baqin qabyaaladiid ma ogolin qabyaalad waxa la yiraahdo qabyaalada ma ogolin Shariifan war waa ku salaamaya barrow galax waa ku salaamaya ka qaybgalahaas assalaamu calaykum ayaa qabyaaladiid وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دو حسب إذا عدى حسبك قبيالة دي تعرف نبضي النور كنت الشيخ هنبقين
والله هنا كنت شيء ممكن هنا شيء هنا وأنا نقول هاي codkaa ma hayo kuma maqlo runtan waan ka hadlaynaa qabyaaladiid runtan waan ka hadlaynaa cadow waxa tago صح marka hawshu meel wanaagsan maraysaa codkaaga kor ma u qaadi kartaa waqtiga ha iga dhumin adiguna waqtiga ha iska dhuminin haddii aan waxba lagaa maqlaynin waa dhib way badan tahay marka waxaan idiin sheegayaa wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed marka aad soo wacdaan qofta ay soo wacday codka iska soo hagaaji please codka iska soo hagaaji adoo diyaar u ah inaad dalkaaga iyo dadkaaga difaacdo dalkaaga iyo dadkaaga adoo difaacdo adoo diyaar u ah insha Allah taala isoo wac waad mahadsantihiin ku soo dhawaada xisbiga qabyaaladiid ma sha Allah sharaf iyo karaamo nabad iyo nolol aabaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cid wax ka jari kartaa ma jirto waxba lagama bedeli karto hana ku riyoon nabad iyo